gudaheeda ku yaalay waxaana ay kaalmahaasi u dhow yihiin iskuulka sheekh cabdiraxmaan ee ku yaala magaalada boorama waxaananu arrimahaasi aan ka waraysanay maayirka magaalada boorama cabdiraxmaan shidable waxaanan ugu horreyntii weydiinay bal siday wax u dhaceen iyo khasaaruhu inta uu leeyahay markii dadku ka taxayeen tegnay khasaaro ballaaran markii ka soo uu ka yimi oo dhismihii guri yaalay ama shidaha ahaano ama wixii kale uu la yaalay ku gubtay kulley waana wax iska dhaca oo inta badan iska dhaca sanadkii ama labadii sanado mar dhaca khasaarahaasi wuu jiraa qofkii dadkii meheradaha lahaa kaalmaha shidaalka lahaa inkastoo mid laga daadgurayey laakiin kuwa kale khasaarahaasi u gaaray wixii meesha ku jiray ku wada gubtay meesha waayo guddoomiye hore ayay kaalmo badan iyo meelo kale ay u gubteen bartamaha magaalada boorama isla markaasina loo waayey dabdamis iyo wax lagu baktiyo maantana tii oo kalun baa taagan marka maadaama aad tahay maayirkii magaalada boorama maxaa kuu qorshaysan in arrimo kale oo noocana wixii aad kaga hortegi lahaydeen wallahi kullii wax iska dhaca oo wadarada ilaahay ku dhaca sanadkii ama labadii sanadoodna marday dhacaan gubashadana dabdamis waxba ka qaban maayo waxa weeye waqtiga ay wax gudanayaan la joojinayo laakiin kullii bal in wax ka sidii wax uga tegi lahaa kullii gubashadeedii kutalatiida waanu ku daraynaa oo waanu samayn doonaa hadda wixii ka dambeeya haddii loo yidhaahdo saasaa kullii waayo guddoomiye iyagu dabku uu waxyeeleeyey oo kaalmaha gubtay ka dhacay ma jiraan oo aad ogtahay kullii qaraxa fuustooyinka kullii dad uu saameynayaa laakiin kullii koob lama hayo rasmiya oo kolba foostaa qarxaysay kolba waxbaa qaxayey in badanna wuu qaraxuu socday iyana waxba kama qaadi karaan dabka waqtigii biyuhu dhacaan waqtigu qaraxa shidaalku laga diiro waxba kama qaadi karaan kullii tirakoobkaana dayaa leegaan doonaa wixii soo gaaray dadka haddii wax dhibaatay ay soo gaareen kullii sidii meesha loo baktiin lahaa arrinteeda lagu jiray laakiin waad mahadsan tahay kaasi waxaa maayirka magaalada boorama cabdiraxmaan shidable oo ku sugan xarunta gubanaysa bartankeeda oo aan ka waraystay sida ay wax u dhaceen dadweynaha magaalada boorama ayaa dareenkooda ka muujiyey khasaarahan ballaadhan ee soo gaadhay kaalmahaasi shidaal imise boodoodood bay ahaayeen sidee bay dadku idinkala qayb qaateen hawshaa daminteeda iminka ma ku tala jirtaan in xitaa dhinaca nabadgelyada ee deegaanka dadku ka dhacay sideebaad ugu diyaar garowdeen